hoteelka guuleed ee magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay kulan ballaadhan oo loogu magac daray hiilka nabigeeni maxamed ahaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. kulankaasi waxaa iska xaadiriyey dadweyne aad u tiro badan kuwaasi oo wejiyadooda laga dheehanayay dareenka ay ku muujinayaan jacaylka ay u qabaan nabigeeni maxamed ahaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. hoolka kulanku ka dhacayay waxaa joogay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta sheekh khaliil cabdilaahi axmed iyo mas-uuliyiin ka soconaya xisbiyada mucaaradka. culimada kulankani martida ku ahaa sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun, sheekh maxamed sheekh cumar dirir iyo sheekh almis yaxye xaaji ibraahim oo halkaasi ka hadlay waxay si weyn ugu dheeraadeen habdhaqankii wanaagsanaa ee nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. wax ka sheega nabiga calayhi salaatu wasalaam wax laga sheegay runtii waa dad aada u liita dadka wax ka sheegay. taariikhda bini aadamka xadaarada soo maray tanbaa ugu liidata. axadu kutaabihi الله ما إلى هذا وحليه حضارتنا هي الأولى في التاريخ التي إذا طرح السؤال لهم معنى الحياة جابت لا أعرف كل. أنا غير قلبي وحليه حضارة يضو تاريخ البني آدم كمرك الله يقبل وحضارة يقوه الرسالة ويديون نلشوا محي معنى هذا ترى هذا قرم ما يقول ذاك نلش قرم واي دين نبي محمد قرن مايا وحضارة وجود دي يدع يبوب بدن الدنيا الصامت لو بقول مليون بي طبعا دي الكداية وضدك حضارة قاعدين ضدك انت يدلان إني هدنا بخت جود الله فهم بني آدم كأنت يسوق أعطان سكرتك وعديستان سو موجودين سكرتا سير ريفاينر لوغا دغ لو عديو عسانka looga saaro waxay isticmaali jireen bonchar wax la yiraahdo la fallatumay Mareykankuna wuxuu isticmaalay red indianski oo xaqay malaayiinta ah lafahooda sokorta ku cadeysan jiray. Franciscuna milyan iyo barkii Algeria oo xaqay lafahooda sokorta ku cadeysan jiray. حضارة النبي محمد وحنا شيء سواد أنت بناء الله يسي لبعضهم كانوا ملكة الجوريان كوكي ضد أنت اللقاضي موسى مسكا باريس الوضع وهذا ولي الله. النبي محمد وحنا شيء عليه الصلاة والسلام لحق رب لقصة دوره وحول منكر ودلبي وين دلبي قال قصة أركب النبي عليه الصلاة والسلام درجات كلها قف بس يودي ذكرها وديده دولتها إسلام فيها مراحل التاريخ بيلين علماء التاريخ بيلين أقوياء التاريخ بيلين صحافة التاريخ بيلين هو طاومة الإسلام في السورة عضاء ألاف تودا قالت عن السكدين هذا عجيبك أنا بكيتي وإنت أنه نجيسر هي وحيالها السعراء مقال السودان أنا أسباب باريو وحي وايه alaab faransiisku uu leeyahay oo ay muqaataceyaan markaasaa waxay soo heleen macallin luqadda faransiiska dhiga kibay muqaataceeyeen inaynu xakam ka dhigano oo aynu diinteenna iyo shareecadeenna iyo qur'aankeenna sarraysiino oynu maxaakimteenna dhigno oynu barlamaankeenna dhigno oynu madaxtooyadeena dhigno oynu masaajidkeena dhigno oynu barlamaankeenna dhigno meel walba oo danaheena dan guud iyo dan gaari taalaba kitaabka ilaahay iyo sunnada nabi maxamed inuu yaalo maalintaynu arrinkaa xaqiijinno ayaynu xaqiijinay hiilkii iyo gurmadkii nabi maxamed inagu lahaa sala allahu calayhi wasalam. fanaan hore maxamed siciid oo telefishinka sahan hoolka kulankani kula kulmay ayaa isna waxa uu yidhi waxaan u farxay si aan qof bini aadan u farxin maasha allah meel aan ka soo qayb galay meeshii ugu badnayd bay aad baan u salaamayaa muslimiinta meel kasta joogaan kulankan badriyo wuxuu ahaa maasha allah culimo aad u qiimo badan waxna weyn ku kororsanay qiimo badan inuu sii socdana waan jeclaan lahaa oo dhul badan lagu qabto. ugu dambeyntii telefishinka sahan waxaa
kulanka iyo weliba qaabkii loo soo qabanqaabiyey uga warramay xamse cumar oo guddiga qabanqaabada ka mid ahaa. ilaa jimcihii hore runtii waxaan ku jirnay qabanqaabo wuxuu ahaa kulan dareen wadaaga oo aan doonayay caalamka muslimiinta runtii u hiirinayay nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam inaynu inaguna inteenna ku darsanno. ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu asturay culimmadii ugu waaweynay dalka sheekh mustafe iyo sheekh birri iyo sheekh almis ayaanu isla hellay. jaaniskaasaan runtii maanta ka faa'iideynay maadaama ay tahay maalin jimco ah oo dadku runtii ay iska nasanayaan. waxaad arkaysay hoolku inuu buuxo, bannaanku buuxo, intaa hoolka iyo bannaanka joogtaa saddex laabkoodoo kale in runtii albaabka laga celiyey. waanu jeclayn runtii meel furan oo sida istaadiyumka ama meelo ka weyn inaanu ku qabanno, laakiin maadaama kubaddii ay socoto jaaniska maanan helin. taasaa kaliftay runtii inaanu halkan nimaadno. dadkuna dareen ay qabaan iyo kalgacalka ay nebi maxamed u qabaan bay runtii u imanayeen. cid kasta oo aan jaanis u helin maanta halkan timaadana runtii aad iyo aad baan uga cudur daaranaynaa. Badri Koosar Maxamuud, telefishinka Sahan, Hargeysa.